haddii ka waran maasha allah number fara badan oo amount lacag ah ururino farxad intee la eega leedahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مالك استادون كجوكتان وكين سيكي وذا الله اسكو سو نقد وناكسن كلية ما هي أجيدة يس ان اصحاب تسيكي والسلام مايا يعني صعد صعد إبراهيم مرقبور يسوي يس ما شاء الله وكسو دويننا سيكي فاميلي ما شاء الله ورت سيكي فاميلي aadan ugu mahadcelina sida quruxda badan ay soo dhaweeyeen ayagana waxa la yahay soo dhawaada insha Allah hadii la yiraahdo ma santihiin. waxaan markale idinka mahadcelinayaa Samara jaceelka quruxda badan aad u muujiseen run ahaantii never in my life qof janaalkii ka soo dhex muuqda oo jaceelka inta leeg loo qabo wallahi been idin sheegay always waa ixtiraamtaan dadka idinkeena aniga dadku isku ma jiraan ma sha Allah. Samara waxay noqotay shakhsigii ugu feedback quruxda badnaa never in my life inta YouTube kayga bini aadan keenay ما شاء الله aad u mahadsan asxaabtada qaaliga anigana farxada ay tahay waayo qof aniga aan wato oo aan ku faraxsanahay markii aan bulshadeyda ee igu xiran aan la hor imaado walaalahay ay iyagana muujiyaan aniga saa ugu faraxsanahay ay iyagana ugu faraxsan yihiin u jeclaadaan wax weyn waa aad naftirka ku farxay aad aad wada kama celinayna sida u wanaagsantii u wanaagsan aad aad waxaan naga soo codsateen su'aalo fara badan aad iyada anigaba nasoo weydiiseen inaan su'aalahaas idinkaga jawaabno. su'aalahaas waa idinkaga jawaabeynaa muuqaalka ku xiga hadduu ilaahay raali ka noqdo. balse hadda waxaan rabaa fariin yar saan halkan kusoo qorayba inaan halkan ka sheego hadduu ilaahay raali ka noqdo. fariintaas wax kale maahan waxay noqosaysaa aniga iyo walaalka Idris lee noqosaysaa. fariintu waxay tahay 2 isbuuc ka hor meelaha adi iska dheh 3 isbuuc meelaha aan 2 mar waxaan soo kala geliyay barnaamij abaarihii waqooyi iyo ka dhacayay iyo ramadaantu soo dhow barnaamij ku saabsan oo aan ku soo qoray Instagram-kayga jiray oo aan dhahay waxaan sameyn doonaa live YouTube live TikTok ma waxaan soo qoray waxaan sameyn doonaa live YouTube dad baa xitaa waxa ii soo qorayay Instagram-kaaga soo dhigay adaa waa aragtay hadda gadaal laga helaaba dadka hadii ay gadaal u raacaan waayo iyaga waxay ka soo bixinayeen comment ay ka soo bixinayeen story-gayga wali hadii gadaal u raac waa soo heli karaa dada waxay isoo qorayeen xitaa Abu Falla ma bareejene khayrka in la isaga daydo wax fiican waay aad in khayrka la isaga daydo wax fiican waay mid kale ani inaan dad caawiyo oo live ah u soo galo live macnaha live oo 24 hours ama 48 hours taas waa wali ma sameynin laakiin live inaan soo galo aan dad caawiyo hadda iguma horeyso horaan u sameeyay inaan live soo galo aan dad caawiyo ama Instagram ma noqoto ama meel kale laakiin hadda way u cusub waaye waxaana ku soo qoray Instagram-kayga 2 week hor meelahaas ahayd fikradan ku soo qorayna waxay ahayd inaan soo gali doono live YouTube oo aan ku caawin doono abaaraha dadka maaragtay ku dhacay iyo dadka ramadaanta aan haysanin afur iyo suxur in maaragtay aan ku caawin doono aan live YouTube soo gali doono walibana waxaan ku soo qoray waxaan tagi doonaa Istanbul markii aan Istanbul tago oo aan asxaabteyda u tago ayaan barnaamijkaas sameyn doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaana barnaamijkaas nala geli doonta ama aan ka codsan doonaa in ay noo promoter gareeyaan xawaalada Taaj qoraalka dib hadda u raaco oo mar kale aad dadka commentiga ka soo bixiyay aad qoraalka soo qortaan waa arki karaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. marka mid jirta waxay tahay Drisla isagana wuxuu soo dhigay in maaragtay uu caawinta sameynayo Drisle hadda intuusan videogan soo dhigin oo asaga afkiisa nooga sheegayo aniga ayaaba marqaati ka ah oo daawaday in live TikTok uu balamiyay taariikhda ma ogi laakiin taariikh inuu sheego yiri 2 maalin ayaan live TikTok soo gali doonaa oo aan caawin doonaa dadka ramadaanta aan haysanin afur taas ana marqaati ka ah videogu soo dhigana afkiisu idinkaga cadeeyay waayahay anigana waxaan sheegay live YouTube inaan soo galayo maxaa isaga shaqaa marka way u rabtiin in aan wax ka soo dhex saartaan mid kale aniga isaga nushuuma ka ay balamin kartaan waayo markuu safarka soo galayana asaga waa isla hadlaynay waa isla hadalnaa asxaabaan nahay safar kale inaan soo wada galnaa wada qorsheenaynaa aniga asaga dad waxaan nahay idinka iska kiyin og صح soo waxa garateen ma haddii khayr loo tartamayna waa wax wanaagsan bay
isku dayada fiican tahay dhanka wanaaga dhanka maya hadiiba khayr la sameynayo oo asi u sameynayo ana sameynayo waaba wax wanaagsan idinkan dad badan aan ugu dayan doono exactly asaga videogiisa maadaama dadka hormuud aad u tihiin videogiisa ka sheegay wuxuu yiri waxaan sheegay live TikTok inaan soo galayo safarka iga baajiyay taariikhda aan soo sheegay haddana maadaama team work aan haysto waxaan ku dari doonaa YouTube ayuu yiri is normal waa caadi at least waxaan dhahnaa dadka intay live soo galaan qabyaalada isku caynaya hadiiba intaan energy ku bixinayno live intaan soo galno dhowr iyo maaragtay 20 saac iyo 2 days iyo 3 days energy gelinayno dad walaaleen inaan caawino barnaamijkan qofka sameeyay wiil Soomaali wuu sameeyay barnaamijkan oo aniga Idrislaba naga horeeyay laakiin waxay ahayd TikTok ma ahayn live YouTube marka haduu ilaahay raali ka noqdo isaga haduu sameeyo aniga hadaa sameeyo labadeenaba hadaan wada sameynana khayr weeyaan oo waxaan caawinaynaa dadka anaga dhiigeena ah oo walaalaheena ee muslimiinta ah waana wax wanaagsan oo aan waliba leeyahay YouTuberada kalena ha sameeya marka dadka intaas xumaanta ka raadinaya oo aniga Instagramkii uu soo qoraya maadaama dhaaday live YouTube waa sameynaa Idrislan uu dhahay haduu sameeyo xitaa is normal hore wuxuu u sheegay ha iloobina in uu yiri live TikTok ayaan soo galaya oo dadku caawinaya isagana hadii YouTube uu ku darayna is normal waa caadi waa ku hambalyanaya waana ugu bogaadinaya waana u sabcinaya idinkana waxa mudantiin inaa noo sacbisaan dadka qabyaalada ku ciyaaraba gifti waa siisaan waa u sacbisaan annaga gifti idinka ma rabno waxa idinka rabnaa inaana dhiirigelisaan oo noo sacbisaan oo na garab istaagtaan si dadkan wax ugu qaban asagana waan ku hambalyanaya waan ku bogaadinaya dhalinyarada YouTuberada ahna insaan oo kale ay sameeyaan iyagana waan ku hambalyanayna waan ku bogaadinayna waan ku faraxsanahay haddaan ku guuleysto ka waran live streamkaas YouTubekaas message isoo qortay markaas uu dhigayay comment ay soo bixisay story-ga waxay dhahday maasha Allah barnaamijkan wax badan aan kula jeclaa inaa sameeyay oo falahaad ka hor sameeyay saasay ugu tariyay xitaa dadkii feedback ka soo bixiyay kamid ahayd haddii ka waran maasha Allah number far badan oo amount lacag ah ururino farxad intee la eegay leedahay oo dadkaas masaakiinta lagu caawinayo farxad aad u weyn qof walbana wuu dareemi karaa wax aad u wanaagsan sameynaysiin oo Allah subhanahu wa ta'ala raali ka yahay oo dadkaaga wax ugu qabanaysid يعني صدقنا واحد وناكسن واللي بإيده أدنى بالبركيسن رمضان اللي وجيره مركي إن شاء الله وحرجينا ذات بدنا ولا له إنه كفر حدونان رمضان أنت العاوي هذا يقوم عصب سيدان لك صعب رمضان توري وحن سمين جري رمضان توري وحن سمين جري وحن وكيل كدين جري قف مقدس جوجا سيد ير ولالك بروفيسور وجامعة معلنك وأنا من سنة هي ضدك حسوستا لبس سون كوري إن هذا أملينا سون كان سون كسي هوري سون كنا سود أفاكي كوري لايف أن سوق وحن سمينا فيديو يا مالك كستا أن سود ديجاي فيديو أنا سود ديجايو فيديو الصومالي اللي يسوع سمينا لبدو ضد كول جلاي إن ضد بان مارك لمبر وقراي العجز سود دراي ومقعد أن قراي حوالي التاج waxay soo diraana dadkii markii la gaarsiinay video laga soo duubi jiray qofkii xasuusta aadi Ramadan hadda way imaaday sidii hore aan u sameyn jirnay oo aan dadku caawin jirnay weeyaan haddana waxaan sameynayo ma sha Allah Ramadan ka hadda la soo dhaafay ma sameyn laakiin kii ka horeeya sameeyay haddana waxaan diyaar u ahay insha Allah inaan sameeyo biidnillaahi alkariim waxaan rajeynayaa amount fara badan oo lacag ah inaan sameeyno quraansho ururta bulac waajida $1 xitaa hadii laga helo walaalaha waa garab istaagtay waa anaga hadda anaga maanta biyo cada cabina may gastriya maanta uu kacsan mango ma cabi kari heerkaas taagana laakiin dad aan biyaha cadeysanay jiraan heer waxa taagana maanta may jimka ku soo noqday faadka iska ilaalinaa inaan buurto cuntadan faadi leedahay macunay dadna waxay leeyihiin biyo caday marka in aan isgarab istaagno wax fiican waaye ma sha Allah khayrna uu ku jiraa ugu dambeyntii marka waxa idin leeyahay guys wanaaga laga shaqeeyo insha Allah ku dhiirigeliya si يعني مرة بدنا أسميان إن شاء الله دولار أيقنا ويجعلي مرة بدنا أسميان أنا وحن كله هو أصلا كتيندي وكل جين أذن وكل واعنا ما شاء الله ما سند حالك جورو يا بارو ما سند دوك فرح سناي نورت والله قف أدو ناكسنات أدونك يعني قف مركي وحلا شيء وأدنى قادنا ولا قف أدو ناكسون فأنت رنا يقطع رهانتي ما شاء الله نحن كله هو أصلا كله هاي إن شاء الله أصحابتنا وحرجينا إن برنامج كان نقل قيب قادن دونان أو يعني ضد بدن عابين دونان ولا له هذا
maadaama dad dhibaataysan iska jiraan insha Allah si ayagana yani qofka haduu sadaqa baxsado yani markii wax ku bixsatid ay wax ku soo galayaan yani hadda waxaan u sugayo aan barnaamijkan u sugaya waxay ahayd maxamed agshiya waxaan ka sugaynaa mas'uuliyiinta sarsare ee xawaalada taaj inuu la xiriiro isaga ayaan ka war sugayaa qaabkii aan u howlgelin lahayn marka haddii beri uu soo dhameeyo waqti waahayna anaga waa soo galaynaa live-ka waa bilaabaynaa beri dambe hadduu soo dhameeyo still waqti waahayna live-ka waa soo galaynaa marka maxamed agshay iyo mas'uuliyiinta xawaalada taaj ayaan ka sugaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo ballanteena waxay tahay in dadka walaalaheen caawiyo insha Allah asxaabtana waxaa leeyahay idinkana garab nasiya anaga kale wax ma qaban karno waa dadaaleyna insha Allah hadduu ilaahay guuleeyay rajayna ilaahay idin baraka